wafdigan maanta soo gaaray magaalada Baydhabo ee xarunta ku meel gaarka maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya isla markaasina uu hogaaminayay taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed General Oduwa Yusuf Raage ayaa waxa qayb ka ahaa saraakiil ka tirsan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed waxaana garoonka diyaaradaha ee magaalada Baydhabo si diiran ugu soo dhaweeyay saraakiil ka tirsan qaybta 6aad ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliya oo ugu horeeyay taliyaha qaybta 6aad ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed wafdiga uu horkaaciyay taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa waxa loo soo galbiyay xarunta qaybta 6aad ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliya ugu horeen waxa warfidiyaanka la hadlay taliyaha qaybta 6aad ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed General Maxamed Sheekh isagoona sheegay inuu aad ugu faraxsan yahay in garoonka diyaaradaha ee magaalada Baydhabo ay ku soo dhaweeyaan wafdi uu hogaaminayo taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed waxaana soo gaaray wafdi uu hogaaminayo taliyaha xoogga dalka Soomaaliyeed iyo wafdigiisa waxaan ku soo dhaweynay International Airport Shatigud Baydhabo waxaan ku faraxsanahay inaan soo dhaweyno taliyaha xoogga dalka Soomaaliyeed iyo wafdigiisa iyagoo u yimid kormeer shaqo qaybta 6aad waxaan aaminsanahay in uu la kulmi doono ciidan diyaarsan tababaran isla markaasna aan rajaynayo inuu dhiirigelin u sameyn doono ciidamadaas muddada dheer la soo tababaray oo ay tahay xafladooda bari insha Allah waxaan ku soo dhaweynayaa taliyaha xoogga dalka Soomaaliyeed taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed General Oduwa Yusuf Raage oo isagana dhankiisa la hadlay warfidiyaanka ayaa sheegay in ujeedada ugu weyn ee magaalada Baydhabo ay soo gaareen ay tahay sidii tababar looga soo xiri lahaa ciidan ka tirsan qaybta 6aad ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliya isagoona sheegay inuu aad ugu faraxsan yahay maatinkiisa magaalada Baydhabo aad iyo aad u mahadsantihiin aad baan idin salaamaya guud ahaan taliyaha qaybta abaanduulaha qaybta iyo guud ahaan saraakiisha kale safarkeena maantay ma doonayo inaan hadda wax dheer ka dhaho runtii wuxuu ku saabsanay kormeer aan ku imaanaynay qaybta 6aad oo qaado doona waqti kooban oo aan ugu talagalnay hadii Ilaahay yiraahdo iyo ka qaybgalka ciidamo in muddaaba halkan uu tababar uga socday oo aan rajaynayno waqtiyada soo socda in ay dhici doonto gabagabadii tababarkooda hadii Ilaahay ogolaado marka guud ahaan safarradeennii aan qaybaha kala duwan ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed aan ku tageynay qayb kamid ah way marka إن شاء الله تعالى ووحي كلنا قدرنا نسكال الصعدون عادي هذا ومحسنتين هذا ما أهن قبل كشبه الله وسكليه ودهن عيدك حق ذلك سومالي سيدا الله صعطة قبل ذلك بيلا كلا دون وهو هو قال لك وديا هو قال هذا صنع بقول كي بس عشان وحنده كرنا سجولة يي كل مادين عم بكون صعد عم قوة كمده وحنا رجينا إن شاء الله تعالى هو قال هذا إنه يسي صعدونا وحيابها أن رجينا إننا وده نمان كان ومدة الصومالية ودي ده نبدي ينولش ودي ده إن هو هاي شيء لقد دول قاعد ومدة سقف البصومالي هو أي جروج ده أي نبض يقول ولاته هو هاي شيء بيره هذا أي وقت بعدان سحر أي وقت بعدان مركا طبعا وحنا سلاي هاي وشاب الله هو كوا كسعدة guud ahaan gobolada howlgallada ka socda qayb kamid ah maalinta berita ayaa waxa lagu wadaa taliyaha inuu ka qayb galo xaflad ay ku qalan jibinayaan askar ka tirsan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed gaar ahaan kuwa qaybta 6aad oo muddo tababar ugu socday magaalada Baydhabo ee xarunta ku meel gaarka maamulka Koonfur Galbeed